الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wiilasha xoogaa soo dhawaada xoogaha darbiyada odayaasha ku tiirsan kara kaliya odayaasha loo ogolyaha soo dhawaada ما شاء الله. بسم الله. كلمة محاضرة سيدا المقليسين waxaan ka hadli doonaa mawduuc yar oo kooban oo ah axsin mucaamalat allahi tacaala yuxsin mucaamalataka haddaad hagaajiso xiriirka aada alla la leedahay isaguna wuxuu hagaajinayaa xiriirka uu kula leeyahay haddaad hagaajiso dhaqanka aada alla la dhaqmayso isna si wanaagsan buu kula dhaqmayaa haddii aada markii aada rabto inaad wax samayso qalbigaaga alla ku weyn yahay waxaa sameynaysa isaga alla dartii aad u qabato oo waxa aad ka tegaysa alla dartii aada uga tagto oo aada amarkaaga isaga u dhiibato tala saarato ilaahay tabaaraka wa tacaala mar walba mucaamalada uu kula dhaqmayo way wanaagsanaanaysaa waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala ilaa 10 qodob oo qofkii 10 arrimood sameeya oo hagaajiya ilaahay tabaaraka wa tacaala mucaamalo fiican oo wanaagsan buu kula dhaqmayaa adduunkana wuxuu ku noolaanayaa wanaag aakhirna jannadu galaya biidn illahi tacaala 10kaas gabdhaha mikrofoonka maqlaysaan hadalka way maqlayaan soo ma 10 arrimood 5 ka mid ah xadiid buu nabigu ku sheegay sala allahu alay wasalam 5ta kalena waa ku daraynaa insha allahu tacaala waa 10 axaadiista nabiga sala allahu alay wasalam iyo laga fahmayo qur-aanka iyo diinta laga fahmayo waxay ka wada turjumayaan sida aad ilaahay ula dhaqanto buu kula dhaqmayaa xadiidka imaamu tirmidi uu wariyey abu hurayra radia allahu canhu ayaa wuxuu leeyahay nabiga maalin sala allahu alayh wasalam yaa nala hadlay saxaabadu la hadlay markaasuu wuxuu yihi man ya'khudu minii haulaai alkalimaat wayacmalu bihina aw yucallimu man yacmalu bihina yaa iga qaata 5 kelimadood waa 5 arrimood yaa iga qaadanaya oo ku dhaqmaya ama baraya qof ku dhaqma 5 arrimood yaa intuu qaato ku dhaqmaya ama qof ku dhaqma baraya macnaha waa 5 statements camal who will take this statement from me or and practice or teach someone who practice 5 arrimood abu hurayra radiallahu canhu yaa wuxuu yihi ana ya rasuul allah rasuulka ilaahi aniga markaasuu nabigu gacantu qabtay sala allahu alay salam فأخذ بيدي وعد 5 5 buu tiriyay intuu gacanta i qabtay 1 2 3 4 5 oo kale markaasuu nabigu wuxuu yihi sala allahu alay salam ittaqi lmaxaarima takun acbad annaas warda bima qasama allahu laka takun agna annaas waaxsin ilaa jaarika takun mu'mina waaxiba linnaasi ma tuxibu linafsika takun muslima walaa tukthir الضaxika faina kahrata الضaxiki tumitu اlqalb wuxuu nabigu sal اله عليه وسلم 5 intuu qabtay iyo wuxuu yihi itaqi lmaxaarima takun acbad annaas waxaad iska ilaalisaa xaaraamta alle waxaad noqonaysaa addoommada ilaahay kan ugu fiican fiiri haddaad xaaraanta iska ilaalisid oo wuxuu ilaahay xaaraam yeelay aada iska ilaalisid oo ilaahay aada qiimo u yeeshid oo amarkiisa aada qiimo u yeeshid ilaahay wuxuu adna kugula dhaqmayaa inuu kaa dhigto addoommadiisa midka ugu wanaagsan oo asaga ugu dhow oo ugu sokeeya uu kaa dhigaya allah tabaaraka wa tacaala ittaqi lmaxaarima takun acbad annaas waxaad ogtihiin qofka bini aadamka ah waxa uu raadinayo hadda inaga waxaan u noolahay nolosha
waa inuu qofku addoon wanaagsan u noqdo. hadda why we come to the masjid, why we reading Quran, why we praying the salat, why we have to do the good, just to be a good servant of Allah. Soma inaad addoon fiican noqotid oo wanaagsan aad noqoto oo dadka kale ka fiican oo ilaa xiriir fiican la leh, waxaad ku noqonaysaa markaad xaaraanta ka tagto. waxaa la yaabaysaa qur-aanka amarka ugu horeeya, musxafka qur-aanka marka la furo, amarka ugu horeeyo ilaahay uu addoommadiisa amray ee qur-aanka ku yimid waa amar ilaahay uuna amray inaan addoon isaga u noqono. amarka ugu horeeya yaa ayuha nnaasu ucbuduu rabbakum waladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun. ilaahay dadkii dadow, dadka dhan baa lala hadlayaa. ucbuduu rabbakum, rabbigiin caabuda, addoon ilaahay noqo. waxaad xaqiijisaa wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun. haddaad marka aad addoon noqoto, waxaa lihi nebi maxamed sala allahu alay wasalam markuu gaaro darajada bini aadamnimada ugu sareyso oo bini aadam gaari karo, oo qof bini aadamahoo kale xataa uusan gaarin darajadaas markuu gaaro, oo ilaahay nabiga uu la hadlayo, wuxuu u dhihi jiray addoonkaygii. walidaalika waxay dhahaan asharafu fi lcubuudiya, sharaftu waxay ku jirtaa addoonnimada ilahay addoonka u tahay. nabiga sal alla alay slam meelaha bini aadamku uusan gaari karin oo la gaarsiiye waxaa kamid a markii samada la geeyey, soo ma ilahay wuxuu yihi subxaana aladii asraa bicabdihi, ma dhihin binabiyihi iyo birasuulihi bicabdihi. markii qur-aanka lagu soo dejinayo waa marka ugu sharafta badan nabiga sal allahu alay wasalam wax ilaahay siiyey, soo qur-aanka ma aha. tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih, alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaab. markii beder nabiga sal alla alay slam uu dagaalka galay oo isagoo saxaabo yar oo gruub yar a wata uu gaaladii oo dhan ka guulaystay awoodda badnaa, waa miracle, wax la yaabo waayo. ilaahay wuxuu yihi iyo wixii aan kusoo dejinay addoonkeenna, wixii addoonkeena aan kusoo dejinay yowma alfurqaan yowma altaqa aljamcaan. fiiri, marka addoonnimadu waa sharaf. haddaad rabtid inaad addoon fiican noqotid, xaaraamta iska ilaali. markaad dadka la joogtid, sida aad xaaraamta isaga ilaalinayso markaad keligaa tahay, iska ilaali. waxaad iska ilaalisaa marka aad keligaa noqotid inaad xaaraamta u dhuumato. markaad dadka la joogtid aad qof fiican iska dhigto. imaamu shaafici baa leeyahy maalin isaga oo ardayda u khudbaynaya, darsi akrinaya. imaamu shaafici waa imaamiyada ugu waaweyn adduunka soo maray, soo ma isagoo darsi akrinaya baa gabadh dhalinyaro ah baa soo gasha. gabadh dhalinyaro oo haddana si qaadar u labisan oo inagu waxaan ahaa ciyaalka xaafadda oo kale u eg baa soo gasha. markaase intay soo kor istaagto waxay tiri amutagaafilun fi leyl mutakalimun fi nahaar. habeenkiina alla waad halmaansantaho ninkaan arkay baa tahay, maalintiina dadkaad u khudbaynaysaa. markaasa dadkii o dhan way shakiyeen. haddii hadda intay qof dhalinyaro u soo galo uu sheekh wax akrinaya ku dhaho habeenkiina saan arkay baa tahay, maalintiina saan baa tahay, maxaad u fahmi lahayd? waxaa loo fahmana nin xun, soo ma. imaam shaafici marka gabadhi intuu fiiriyey bu wuxuu yihi kam xisaabuka xataa tansarifi, xisaabtaada waa meeqe aad iska baxday, macnaha rasiidkaaga lacagta aad rabto waa meeqe. shaki uu sii badanaa marka sii badanaya, iyadoo waxaa la taagan oo weli jawaabin. yaa qof baa intuu soo galo wuxuu ku yihi gabadhii gurigaagii wuu gubtay, caruurtaadiina way ku jiraan. markaasay carartay, markaasuu ka daba baxay sheekii, ardaydiina way raaceen. gurigiibuu oo la daminayay uu sheekhu wax ka damiyey, waa la damiyey ardadiisii iyo asagii baa gurigii damiyey. marka gurigii la damiyey, gabadhi waxay artay ninkaan sida uu uga hagarbaxay iyo siduu u shaqeeyey iyo sida uu shaqada qabtay iyo bini aadanimada ka muuqato. markii gurigii la dhameeyey bay soo jeestisay tiri sheekhow iga raali ahow, haddaan runta kuu sheego niman yuhuud ah ay soo diro waxay dhaheen sheekha ceebee si loogu maleeyo inuu nin xun yahay. marka waan ku sharqoolayay, saraab baan waxaan rabay inaan ku saraab gareeyo oo xumaan ku dhexgeliyo oo aan kugu sameeyo, aan dadka wax xun ka dhaadhiciyo. markaasuu yihi hadda wax walba okay miya? say tiri haa khayr wey, nin fiican baa tahay, gurigiina waa ii damisay, khayr allah kusii cafi.
markuu soo noqday bay ardadii waxay ku dhaheen naagta markay hadlaysay maxaa isu difaaci weyday maxaa isu difaaci weyday u dhihi weyday naa aniga habeenkeen nin fiican baan ahay maalinteen nin fiican baan ahay markaas wixii haddaan saas dhihi lahaa labaad u qaybsami lahaydeen qolo i beenisa iyo qolo i rumaysa laakiin xoogaa shaki ku jiro weli oo dhahaya war naagtu maxay ahayd war maxay tiri innaga soomaalida waa taqaanaan qof baa hadal social media soo gelinaya kuwa dhahaya waxa la yidhi ma maqasheen waxa la sheegay ma maqasheen hadalkii waa lasii wadaya hadduu hadda maanta dhan qof hebel waayo saas waayo u dhaho hadda hadduu been sheegayo og tahay inuu been sheegayo waa la wadwadayaa hadalka laakiin wuxuu yihi markaan arkay gabadhaan inay baxri gelisay xaaladuna ay xun tahay yaa waxaan iri buu yidhi wa ufawidu amrii ila allah ina allaha basiirun bilcibaad amarkayga allaan u bandhigay allaana addoommada ujeeda oo kala xukumaya markaasuu ilaahay wuxuu yihi gabadhi intuu ku mashquuliyay gurigeedii oo gubtay bu anigana iberi yeelay maxay daliil u tahay waxay daliil u tahay haddaad alla uga baqdi markaad keligaa tahay inaad maxaarimta iska ilaalisid wuxuu kugu abaalmarinayaa inuu dadka dhexdooda sumcad kugu yeelo haddii xataa lagu xadgudban inuu isagoo ku difaaco allah tabaaraka wa tacaala fiir ittaqi lmaxaarima takun acbad annaas ina waxaa la rabaa haddaad rabta addoon fiican oo nadiifa inaad noqotid xaaraamta alla xaaraam yaa la iska ilaali qodobka koobaad marka axsin mucaamalatahu في تركك المحرمات يحسن معاملتك هداد وناجس حريرك الله leedahay xaraamta iska ilaalisid xiriirka uu kula leeyahay fiicnaanaya adoon fiican ka dhigaya qodobka labaad nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay warda bima qasama Allah laka takun aghna an-nas wixii ilaahay ku siiyay ku qanaac waxaad noqonaysaa dadka qofka ugu qanisan baad noqonaysaa fiiri ilaahay wuxuu ku siiyey wax kastoo noqoto lacag magac qurux color waxay noqotaba shahaado haddaa wax haysta aad ku qanacsan tahay ilaahay wuxuu kaa dhigaya qofka dadka ugu qanisan uu kaa dhigaya waxaad fiirisaa nabi maxamed sala allahu alay wasalam marka aad fiirisid noloshiisa sidee bay ahayd dadka qofka ugu qiimaha badan oo ugu sharafta badan oo ugu deeqsisan oo ugu kariimsan yuu ahaa gurigiisana waxaa dhici jirtay 2 bilood inaan dab laga shidin macnaha dab dhan hadda inaan laga shidin macnaha caaisha waxay tiri waxaana soo mari jirtay 3 dayax oo 2 bilood gudahood ah 60 beri macnaha bil baa dhamaatay bil kalaa dhalatay way dhamaatay mid kalaa nagu dul dhalatay 3 dayax baan arki jiray ayadoo guriga nabi maxamed dab laga shidin sallallahu alayhi wasallam wili habarir ayda wuxuu yiri urwa ay habar yar maxaad cuni jirteen kaasay tii labada madmadow timir iyo biyo cuni jiray laakiin mararka qaar kood nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu lahaa reer ansaar oo daris ah marka ay xoolaha maalaan bay caano u soo dhiibi jireen caanahaas uu nabigu siin jiray sallallahu alayhi wasallam mararka qaar kood fiiri waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu xadiid kale leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam imaam axmed uu wariyay waxaa soo martay aniga iyo bilaal 30 hameyn oo maalmahoodii wadata waa 30 days and nights oo aniga bilaal aan waxba waxna cunaa maali wal bilaal ma yaakulu dhu kabid wax beer leh macnaha nool oo naf ku jirto wax uu cuno ma aanan haysan illa ma yuwarihi ibtu bilaal wax uu bilaal kilkisha ku qarnayay ma ahana timir buutay baa la yar oo meesha ku qarnay 30 beri way 30 beri ila Aisha intee la yaabtay nabiga nolosha uu ku jiro iyo nabigu wuxuu yahay Aisha ma ogtahay haddaan rabo buurta Uhud waa taqaanada mountain of Uhud inta leegta samada arag haddaan rabo caawa ilaahay dahab iga dhigi karaa dahab iga dhigi karaa laakiin ana nolosha ana saan doorto ana raba adoon alla ku shukriye inaan noqdo ana raba inaan adduun raac noqon oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahi baa marka adduunka qaybiya ilaahi baana nooga digay ilaahi baana wuxuu sheegay adduunku inuu yahay wax aakhiro loogu shaqaysto yaa ayuha annaasu inna wacda allahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu dunya dadow ballanta alla waa run adduunka ha ku kalsoomin iska ilaaliya
marka ma rabtaa inaad noqotid qofka dadka ugu qanisan wixii ilaahay ku siiya ku qana wax yar haddaad haysato ku qana ilaahay baa wuxuu kaa dhigaya qofka dadka ugu qanisan waa maxay mucaamaladaasi haddaad ku shukrido wuxuu ku siiyo oo wax yar ku haysata aa ku qanacdid ilaahay wuxuu mucaamalo qalbigaa gelinayaa qof degan oo dadka dhan ka sharaf badan oo hani ah inaad noqotid mucaamalada waay fiir waxaas qodobka saddexaad nabigu wuxuu lehy sala allah alay wasalam wa axsin ilaa jaarika takun mu'minan dariskaaga ixsaan u samee mu'min baad noqonaysaa addoommada ilahay baa abuurtay asagaana meesha uu degan yahay qofna isagaa dejiyey qofka dariska kula ah inta uu ku dhibsan lahaa oo uu wax kaa sheegi lahaa oo aad la dagaali lahayd haddaad caawiso oo dadka aad caawiso oo isxaan aad u samayso oo ilaahay uu qalbigaaga ka arka inaad tahay qof muxsino ixsaan samaynaya iimaan buu ilahay ku siinaya soo fiirsada haddii uu ilaahay kaa arka qalbigaaga inuu ku jiro ixsaan samayn iyo dadka inaad caawinayso wuxuu kaa dhigay ilaah mu'min iimaanku uu qarsooya ilahay baa bixiyo qalbiga wax ku jira ma naqaan ilaahay baa og soo ma nabiga sala allahu alay wasalam nin acraabi ah reer baadiye ah baa nabiga sala allahu alay wasalam rumeeyey oo raacay markuu rumeeyey wuxuu yihi rasuulka ilaahayow waxaan rabaa inaan kula hijroodo manaa inaan kula hijroodo uhaajiru macaka ya rasuul allah markaasuu nabigu wuxuu yihi nakeen saxaabadiisa qaar kamid nabigu wuxuu yihi ninkaan bal ogaada oo dhaqaaleeya waa nin reer baadiye oo miskiin nabigu sala allahu alay wasalam dagaal buu galay markaasuu haniimo xooluu helay waxay dhahen saxaabadu ninkani wuxuu ku maqnaa awrta ama gaadiidka xoolaha ay raranayaan inuu noo ilaaliyo buu markaa ku maqnaa nabigu xoolihiibu intuu qeybiyey buu saxaabadii uu u dardaarmay buu qaar ugu dhiibi wuxuu markuu yimaado qeybsi weeye siiya ninkii baa yimid saa la yihi xoolahan qaado si maxay tahay nabigaa ku siiyey sala allah alay slam markaasuu soo qaatay nabigu u yimid suu yihi yaa muxamed maa haada maxamed waxan waa maxay suu yihi nabigu sala allah alay wasalam haadaa qismun qasamtuhu lak waa maal aan kuu qeybiyey adiga aan ku siiyey markaa xoolihii qeybiyey bay kugu soo aaday markaasuu yihi maa lihaada itabactuka anugu waxaan kuma soo raacin anugu adduunya kuma soo raacin walaakini itabactuka an urma hahuna waxaan kuu soo raacay in halkaas laygu dhuftoo lay dilo inaan shahiido aniga waxaan kuu soo raacay inaan shahiide uma waadkula aljanata oo aan janno galo aniga waxaan kuu soo raacay inaan janno galo kuma soo raacay inaad lacag isiisid markaasuu nabigu ninka la yaabay markaasuu yihi in tasduq yasduqka allah haddaad run sheegtid ilaahay baa ku run sheegaya haddaad run sheegaysid ilaahay baa runtaada ku rumaynaya waxaa qalbigaaga ku jira ood leedahay saas baana hadday run kaa tahay ilaahay baa macigaaga noqonaya mar walba fiir dagaal bay galeen nabiga ninkii oo meyd aho labadaa nabiga loo keenay sala allahu alay slam markaasuu nabigu yihi ahuwa ma asagiiba sida ha meeshuu dhehayay baa marka lagu dhuftay meeshii markaasuu nabigu wuxuu yihi sadaqa allaha fasadaqahu ilaahay buu run u sheegay ilaahayna run buu u sheegay waxaa yaab leh oo ugu yaab badnay qisadaas markaad akrisid xadiidkaas nabigu sala allahu alay wasalam intuu istaagay buu ninkaa janaazo ku tukaday jaakadiisii intuu u siibay buu kafan uga dhigay markaasuu wuxuu yihi allahuma ina haada ilaahay oo midkani haajara fi sabiilika adiga dartaa buu usoo hijrooday wa qutila shahiidan asagoo shahiid abuu la dilay ana shahiidun calaa dalika anaa markhaati u ah anaa markhaati u ah maxamed qof nabigu sal l slam uu leeyahay anaa markhaati uga ah inuu adiga dartaa usoo hijrooday uu leeyahay waa maxay iimaanka uu sheegayo qalbiga ka jira ee afka uu ka leeyahay baa runka ah waay marka waxa aad dhahaysa hadduu runkaa yahay maxaa laga arkayaa ficilkeedii waa laga arkaya dariskaada caawin dadkaada caawin marka iimaankaagu dhamaystirmaya wuxuu nabigu lehy sala allahu alay salam xadiidkaas fiiri haddaad dariskaaga ixsaan u samayso ilaahay ixsaan buu kuu sameynaa isagoo muxuu kuu sameynayaa iimaan buu kaa buuxinayaa
وحنا نقول صلى الله عليه وسلم قضب كأفراد ومدة وقدرا وبدن كنا إن أول وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما وحضرتك لجع على وحد نفط هذا لجع عشاء مسلم بعد نقنيسا تكن مسلما ما حضرتك لجع عشاء ما أنو سلجع على أنا وحان جعلها إن لا أمانه وأن لا عاين وأن عروت هذا لا عاين وأن عبادة هذا لا عاين وأن عقلي هذا لا عاين وأن دينتي هذا وحلقة شيء ودتك أي نشرف لأي أركان ساس بدجعشة هذا سويد اسم حاد جعشة ساس بدجعشة دتك أنت سلجع له وحاد جعشة إن الله حمنين وحلقة شيء وأن الله عاين دتك عاين حمن waxaad jeceshahay in wax lagu siiyo waxaad jeceshahay markaa dadka u timaado inay ku istaagaan oo ku qoslaan oo ku salaamaan dadka salaan oo u qosol fiiri wa ahibba linaasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman musliman noqonaysa haddaad dadka la jeclaato waxaad naftaada la jeceshahay ilaahay muxuu kugu abaal marinayaa inuu muslim sax ka dhigo haddaad dadka waxaad isla jeclayn aad la jeceshahay muslimati أما مسلم هذا حتى ما دمست الإيمان كأنه والنبي الله صلى الله عليه وسلم قلب كشنات قصل كهبدين قصل كبدن قلبي قتلا معنى هذا حوي قصل والله بقى يبغى مد والله عدين قفكوا إنه مركو ضدك أرك إسماعيل كراي معنى هذا قصر شيء والكهجة وعديسي منه وقصل هذا كترجمة فرحدة قفكوا أدوك فرح سنة إن الكعديسيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبصمك في وجه أخيك صدقة لكن قصر كالذي وامحي وامدك قهدا إن كسر شرعيا وبنايه لكن حبذين حداد بدي الصوت وعندك ترى يلا مرك الله فديه ما ترى إلا كفتمه لا شاكيو لا استعايديو لا قصله لا فرح سنادو ما دعكت وحال عمر بن عبد العزيز أياه وحي ننكي إيمانية مجلس كيجا إيه إيمانية صدح شرط بكو إيمانية صدح شرط ننكي أو فيها إيمانية وأمير المؤمنين هو ضدكو يجعله إلا فريستان وحي كورت مجلس كيجا الدنيا اللي مش هيكر واحد الدنيا اللي مش هيكر إنك واحد دعك تهدان فدينه وذات كينا علماء ذينا يا عامة ذينا 8 دقيقة إنا 8 باب الدنيا كهذا لصوما ما ذكرت إنا جناسي كهذا الله تاكسي كهذا الله أوبر كان كهذا الله وأن باسبور هذه كهذا الله وأن كهذا الله بحكم جناسي دكامي كهذا الله وأن كهذا الله وعمل ما كهذا والسياسة دي ما كهذا الدولة دي ما كهذا مركو حي الدنيا اللي مش هيك مدة اللي بعد يقف لقمة حمنك مجلس كي مدة صدحات لقمة كفتمك ما محوا ضد كلية كشة كان يا قرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محن كلها دين آخره قبري دمشق جنة نار جهاد دينه بيكاه الله يعني محن مثلا مجلس كنا عاصم حنا قنيا مركه هذا موسى ميل لو قصقصها إن نقنيس وميل وي أو الخشوع سيء أو ضدك أي خشوع كم مقتوي مركه حدي القصل كباديسو إلهي وحكوع عقابيا قلبي إنه مذوب هذا أو نمت هذا خشوع ضباديسو يحسوس تعالى الله وحكوع أبى المرنيا إن قلبك أمور افتيمه هو أبى المرنيا شنت الحديث كاسلو مش هيك وحنقول ترى يا دور أرمضة كان مدة اللي حاد وأنا مدة إنه رشة إن ما أنت ضد بدن إلههم فوض أمرك إلى الله أرنك إلهي أديبه إلهي أبنيه السيد هانو كله وكما هاجنا أنت الدنبيل كشوبتين إلهي أديبه تبارك وتعالى وحكى قيمة بدل مجرد والله الدون كان واحد كنا أنسى شرف آخرنا مدى يعميسي سمح أستاذ ننكي قرآن كشيكي مؤمن إلهي كشيكي آل فرعون ننكي إيمانك سقريني القرآن كشيكي قوم كيسؤيمن وحيري يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وردت كيجيو الدون كني ووحير أو تجيوي وحير أو تجيوي ومتاع وتجيا آخرنا ودار تصوير
meesha loo socdo aakhiro wey yaa qawmi inama hadihi alxayaatu dunya mataac wa in alaakhirati hiya daaru qaraar man camila sayi'atan falaa yujza ila milaha qofkii xumaan sameeya waa lagu abaalmarinaya xumaantiisa waman camila saalixan qofkii wanaag sameeya min dakarin aw untha wahuwa mu'min isagoo mu'mina qofkii wanaag sameeya fa ulaa'ika yadkhuluuna aljanata yurzaquuna fiha bigayri xisaab kuwaasaa janno gelaya jannada haddii aad geshid waxa aad cunayso iyo waxa aad ku raaxaysanayso waa xisaab la-aan adduunka waa xisaaban yihiin wax kasta adduunka waa xisaaban yihiin aakhira ma xisaabna maanta qofka adduunka aad ugu jeceshahay yaa waay yaad umanaysaa qofka adduunka kuugu jecel who loves you the most your mom, right? If you ask her $1 and she gives to you, then you ask her another $1, then another $1, what she will say? She will say, no, that's too much. وحساب واحد $1, $2, $3 واحد. لكن جنة you ask $1, $1, $10, $20, $50. أديك سعو وليا countless وليا لقوم حسابنا وحساب الآن wuxuu leeyahay waa ninkaan caqligiisa fiirso dadka ula hadlaay fa ulaa'ika yadkhuluuna jannata yurzaquuna fiha bigayri xisaab marka ninkii uu la hadlay iyo waxay damceen inay dilaan markaasuu wuxuu yidhi wa ufawidu amrii ila allah amarkayga aniga ilaahay baa u dhiibtay qofxa iga qaadi kara ma jiro ilaahay wuxuu yihi fawaqaahu allahu sayi'aati maa makaru wixii ay samaynayeen oo dhan ilaahay baa ka ilaaliyay fiir haddaad ilaahay ku kalsoon tahay oo asaga aad isku hadlayso oo aad tala saarato oo asaga aad ku tiirsan tahay adduunka iyo aakhiraba dhibka jira uu kaa kaafinaya waxaa la yidhahdaa maxamed ibnu siriin ayaa maalin masaajidka soo galay waa taabiciinta ragga ugu cilmiga badnaa wey markaasuu wuxuu arkay wiil dhalinyaro ah oo 10 sano aan ka weyneyn oo tukanaya marka wiilku si aad qurux badan buu tukanaya khushuuc aad u malaysid inuu sida ambiyada oo kale si la yaab leh dhaqdhaqaaq iyo male si fiican tiir baad u malaysaa tiir ama buu tukanaya markuu fiiriyay sheekh wiilku la yaabay soo tukanaya markuu wiilka salaadii dhamaystay uu u yeeray wuxuu yidhi wiilow kaalay wuu yimid kaasuu wuxuu yidhi yaa tahay adiga maxaa ahayd si ana yatiimun laa aba lahu walaa ana waxaana agoon hooye aaba midna mali wiil yar baan ahay aabihi hooye midna mali agoon baan ahay markaasuu yidhi ka war haddaan aniga aabba kuu noqdo ka war haddaan aniga aabba kuu noqdo markaasuu yidhi adigana aabba ii noqotaa suu yidhi haye waaye laakiin 5 shardi baad aabba igu noqonaysaa 5 shardi haddaa kasoo baxdid adaa mas-uuliga noqonaya aabba ii noqonaya suu yidhi fadal keen shuruudda suu yidhi shardiga ugu horeeya marka aan gaajoodo cunto ma i siinaysaa markaasuu yidhi haa cuntada ugu fiican baan ku siinayaa oo qof bini aadama la siiyo cunto waa ka dhargeysaa waxa ugu fiican oo maskaxdaada kusoo dhacaya waa lagu siinaya haddii uu dhawaa maxa waxaa rabtay adiga cunto fiican oo qurux badan oo qiimo badan markaasuu yidhi waa aqbalay shardigaas shardiga labaad haddaan oomo biyo la-aan markay igu dhacdo may siinaysaa waxaan cabo si haa cabitaanka ugu qiimaha badan baan ku siinaya si shardigaasna waa aqbalay shardiga saddexaad markii dhar la-aan igu dhacdo dhar ma ii gadaysaa si haa dharka ugu qiimaha badan baan kuu gadaya si shardigaasna waan aqbalay suu yidhi markaan jirrado ma i caafinaysaa suu yidhi maya daawaan ku siinayaa laakiin caafimaadka ilaahay baa haya suu yidhi haddaan dhinto may soo noolayn kartaa would you bring me back if I die markaasuu yidhi maya dhimashada ilaahay baa mas-uulka ah aniga shaqo kuma lihi markaasuu yidhi haddaada markaan jirrada i caafin karin markaan dhintana aada soo noolayn karin iddaa laakiin yaad ii daynaysaa waxaad ii daysaa buu yidhi alladii khalaqanii fahuwa yahdiin midka asagu i abuuray ee i hanuuninaya waladii huwa yuطcimunii wayasqiin waa midka asagu cuntada i siiya cabitaankana i siiya wa idaa maridtu fahuwa yashfiin markaan jiradana way caafiyaa waladii yumiitunii uma yuxyiin
ومنك حتى أن أنت إصانه علينا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وأنا منك آخر هذا أن دمع يا آخر ودمع يناف كاسا أنا إسكوها علينا يا كاسا أنا مسؤول يا not you ما قادك you cannot be responsible هذه مسكينة بعدها و 10 years kid وحسب الله مركز الشيخ هو علمي مركز علمي وحيري أما هذا فقد توكل على الله فكفاه الله من كل شيء إلهي بطلع صارتي إلهي بقى وحكي استكي إلهي فير وحكي استكي إلهي مركز إلهي كنت يرسنتها وصقع أتلنا وديبت وأتكون كالصونتها لذلك حالي هذا مركز أدرينتين إن dhibaata haysato muruga kugu dhacaysa marka qaar sadness not sad time murugo kugu dhacay ku haysato wada xasuusatid Allah tabaaraka wa taala anbiyadiisa markuu ka sheekeynay nabigi xoogaa murugada dhibaatada ku dhacdo yiri la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ilaahi wuxuu yiri fastajabna lah fiir waan ajibna markiiba waan ajibna fiir نبي كلا جرده وجرته عافي ما درك ودعوه وجرته جرك ودعوه ما حسب إنسان حسب إنسان حاجة أليسا نبي بجرده محيري أني مسني يضر وأنت أرحم الراحمين إلهي نبى إتابته أدي أرحم الراحمين ما نبى ما قال نعمل إذا كشيء ولا اللي يراه قال له أو ملاك أبا يا وحيوي مساجد كوي وحيري إمام كان ربنا انترفيو قريه وحن wuxuu qorayaa thesis buu qorayaa marka wuxuu ka hadlayaa cultureska iyo diimaha iyo marka waxaan rabaa diin kasta inaan kaniisada tago masaajidka tago imaamiyada interview gareeyo aan arko waa assignment loo soo diray project uu sameynaa marka imaamku ballan uu samaystay uu yiri marka su'aalo uu weydiiyay islaam ku saabsan uu qoranaya note buu qaadanaya markaas iska sheekaysana waxaan ku yiri adiga maxaa aaminsan tahay si aniga diin ma haysto maxaa dhacay ani waxaan rabaa inaan diimaha saaxiib la ahaado haddaan muslim noqdo christianka ay nacay haddaan christian noqdo muslimka ay nacay haddaan ka noqdo marka I want to be in the middle always friendly to everybody kuwa saaxiibada saan laakiin alla ma aaminsan tahay so yes I believe the guy up there yes I believe him saas hadalay saan how you believe him so I talk to him sometimes saan how you talk to him سيو بتقانا stroke بقى يقول عمر heart attack بقى كده مركز سو حجري I was about to die خاطرته يعاون واين وندمني حنون حب هي وحبوا اللي يجي قبوا واي دم تر حناقان الله اللي وحير hey listen you know me and I know you you kill me or you leave me now then he left me كلها ويسيد ده كلها وافعنا هذا then هذا مركي حاجة لب انتابت أسأل الله كلها وحنا hey you know me and I know you حاجة لب أي هستة help me then he helps me والله يسوي كور هذا إلهي سوق الله عنده حتى في الوقت disrespect ما من صوت ما يغان وجاهي وقال ما أمسنا سرون وما أمسنا لكن هذا نوع أجيه هاي إنه إلهي الله is there for him when he needs him how about if you are Muslim What if you're Muslim? You know Allah is there for you when you need Him. Marka ya Allah ku caawinaya Allah tabaaraka wa taala. Ku caawinaya. Si wiilkeerka ka sheekeynayna. Marka aad maqash saxaabada nabiga marka aad maqashid dad baa ku shirqoolaya dad baa ku dhibaya wax kugu sameynaya حسبنا الله ونعم الوكيل إلهي فوق أبا المريء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله dhibaato dhanka kuma dhacayso dhibaato way kugu dhacaysaa laakiin markaad asaga ku caratid wuu kaa qaadaya alla tabaaraka wa tacaala marka haddaad rabtid inaad noqotid addoon wanaagsan oo alla ku xiran asaga tala saara amarka u dhiibo xaqiiqo wey wallahi mararka qaarkood markaad noloshaada aad ka fakertid waxaa arkaysaa mar aadan alla baryi jirin oo aadan xataa aqoonin buu ku caawinaya وذلك ده صالحين waxay dhigi jireen ilaahayow maalin aan ku weydiisanin baad isiisay anoo ku weydiisanay ha ii diin marka caloosh ku jirtay wax ku siinay markaad dhalatay wax ku siinay markaad hal kaliya wax ku siinay
markaad jirtay 2 sano ama 3 sano ama sanad ma ilaah baad baryaysa maya maada baryay hadda adoo baryaya marka yaa rabbi dhahay kuma u diidayo Allah tabaaraka wa taala marka waxaad hagaajisaa xiriirka aad la leedahay wuxuu hagaajinayaa xiriirka kula leeyahay Allah tabaaraka wa taala qodobka 7 waxa weeye waxa aad samaynaysid alla darti u samee marka wax samaynaysid alla darti u samee Malik ibn Dinar baa wuxuu yiri waa nin sheekh caan ah anoo maraya jidadka Basra jid kamida yaa waxaan arkay wiil dhalinyaro ah oo khamre intuu ka dhargay buu suuxsan yahay waa drunk marka jaag u jiifa jidku yaala marka uu hadlayaa bi hadalkiisa ma aan maqlay marka wuxuu u soo dhawaaday wuxuu leeyahay Allah 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 mulay wasarqaansan isboo wuxuu yiri sheekha fiiri waxaan ka xishooday buu yiri in alla lagu xusabiyo af aan nadiif ahayn markaas inta mara soo qaatay oo maradii aan biyo ku qooyay waan afkii ka tirtiray khamradii ka tirtiray baan caraf iyo cadar baan u mariyay buu yiri anoo rajeynay in alla lagu xusabiyo af nadiif oo carfay markaan wuxuu yiri dhameeyay oo aan wixii ka nadiifiyay isagoo sidii u yaalo Allah dhahay yaa waxay inta gacmaha taagtay Allahumma ruddahu ilayka raddan jamiilan ilaahay oo ninka inta qabatid dhinacaaga u soo celi oo hanuuni wuxuu hameenkii markaan seexday yaa waxaan maqlay buu yiri qof qaylinaya dhawaaqaya waa alla malak kiyim oo dhahaya buu yiri taharta famahu fiina fatahharna qalbahu fiika annaga darteen baa afkiisa u daahirisay annagana qalbigiisa baan adiga dartaa u daahirinay wiilkii nin sheekh buu noqday toobadkeen nasi alla dartii u sameeyay في العالم قاعد حبره قف الدين وشيء قف نقال سينه قف العكس سينه بس هاي كذا لسه يسا وحباب قوانا يسا اللي درتي هدا أقبت درت هدا أقبت وحقيقة اللي انتو كا أقبل وحاس يقولوا كوبر كينيا وكوبر كينيا مركزو انتو كوبر كياد وحدي وين بدك ليسا وح كسر قوانا يسا سيدرتي أقبل درتي أسمعها درت معاملة حريرك الله الذي إن دوانات السد أصلا درتي أقب وحليا أبي إن مركا أي ضدكو أي كهلايان أنت بدل ننكي ناس مركا كهلايان وحيدها وأن حاسس دا عضوة وأنا ننكي هذا دا عضوة صدقوا بدها فيري مو غش ضدها هي هبل وأن اللي صدا عضوة مو غش وقف وأمسى هذا ضاعت إنه الله وياه تبارك وتعالى وياه وقواني الله درته وقبت قدر كسديدان وقابلنا وقت يا رماني قدر كسديدان كلامك الله قرآنك حريرك الله ذي حاجة حريرك الله ذي حاجة قرآنك هذا حاجة وحرير في عنلية أو صاحب نقطان أو همين كست أنت هذا الساحن كتابك وحل على ستا خان لها سرتها سيحة جيسه لا مصحف القرآن اللي لا مصحف القرآن اللي همين كبركة سيحان يسيد إنه واحد قدام يكون سيحان وامحي وتلفونك وآيفونك تلفونك يكون سيحان أنت بدل مسجوا فينا يا قفك وسعابك فينا يا وحالتها أصوات وصل والله كان وسعب كان فيسبوك فينا يا حقه فينا يا وحبوه حاسوا فينا يا قار قفكوا حنيعك إنه داعدي وحنا هادين مسجد الوسط درام في فينا كور هذا المركز ثريتات أنت سكرين ماذا سكديسيد القرآن كسوق عادك اللي قلت إن عشان دقيقتين دقيقة آخرس كور والله نين وذا دهن أقانو وأنا يرى يعني ما نقول ودقنا لا بوقضي تعال سلبي جنجر شغله هو يقانا دون شو قرنا يا marka waxa u yaala 15 mushaf baa u yaala subhanallah what do you do with 15 mushafs siimay waxaan diiday inaan ka caajiso wixii inta ka soo bilaaba waa dhameeyaa wi inta hadana ka soo bilaaba waa dhameeyaa jus baan ka bilaaba jus baan ka akhriya kaasaan jus ka akhriya kaasaan jus ka akhriya kaas markaan dhameeydan start from the other corner jus baan ka akhriya waa dhameeyaa marka waxaan diidayaa inuu hal kitaab inta ugu noqdo aan kitaabkii ka daalo وأصلها يجري ما طلع كتاب كان وضع القرآن كان لقى مدى لكن في رسول واركي وأنا لا يرى واركي وصاحب القرآن كالله مركب قرآنك
saaxiib la noqo saaxiib la noqo waxaa dhici karta waalidiinta qaar badan oo waaweyn inay dhahaan qur-aanka waan ma naqaano macnihiisa ma garanay lakin tafsiirka waa baran kartaa waa xaqiiqa waa hadda ugu duuban yahay meel kasta tafsiir intaad bilowd baad dhamayn kartaa intaad bilowd baad dhamayn kartaa waa xaqiiqa ah waay qur-aanka waa baran kartaa haddaad hal macalin haddaad samaysto la fariisid waa baran kartaa haddaad taqaaninna akri mar walba waxaa lacalla inay joogto gabadhaan ka sheekeyn jira umulkhayr oo dugsigeena dhigan jirtay umulkhayr oo waxaan u malayn waxay ahayd west africa ka timi gabadha umulkhayr oo dugsiga dhigan jirta ma joogto horta umulkhayr ha gaana bay ahayd miya ha gaanis bay ahayd gini waxay tiri maalin bay waxay ii timid gabadhaasi waa xasuustaa dugsiga markaan green dugsigu ku yaalay masjid taqwa shaadka yaraa iyadoo ilmeynaysa ramadaan kadib bay ahayd markaase waxay ugu tiri sheekh ramadaankii baan idinla tukaday qur-aankana wax aan ka weligay dugsi layma geynin qur-aan ma ay dhigan markaase waxay tiri waxaan la ooyay bay tii xanaaq aan nafteeda ku xanaaqay sababta waxay tiri gabdhaha dhinacay ku tukanaya qur-aanka intay kala furaan bay ku raaxaysanayaan qaarigay la socdaan anana waxay tii haddaan arko xog kama arkaayo laakiin ilaahay ballan waxaan ku qaaday wallah bay tiri ramadaanka dambe hadduu soo maro anoo garanaayo waxaan akrinaayo inaan gaaro ballan baan ku qaaday qor dugsiga qor waan qoray wallahi iyadoo tabaarak ku jirta oo xifdisan oo farta si fiican u bartaan ramadaanka dambe la gaaro iyadoo qoslisa ii timid markaase waxay tiri I open the musaf and I enjoy marka imaamku akrinaayo ramadaanka dambe waayo waa wan ramadaan to ramadaan waayo farteen way baratay xataa suurat baqara way akrin kartaa markaas innagana waxaa dhici karta inaan dhahno ma akrin karo ma garanayno ama waxaa dhici karta inuu kula adkaado qur-aanka uu kula adkaado waa taqaanaa lakin in akrin baa kuga adag iska daa meesha yaalo habeenkii soo qaad wax yar ka akri maxaa dhacaya marka haddaad qur-aanka ilaahay jeclaatid oo xiriir fiican la yeelaatid alla wuu ku jeclaanayaa xiriir fiican buu kula yeelanaya qodobka sagaalaad waxa weeye waa qodob muhiim ah waxa ilaahay ku siiyo haddaad wax haysatid wax kamida ilahay darta u bixi dad baa waxay dhahaan mar walba wadaadada nafteen waa keeneen maalin walba waa taagan yihiin jumco kasta akhi jumco kasta adiga wax ku siiya allah every day lacag baa heshaa waxbaa kusoo gala soo ma every month lacag baa kusoo gasha yaa ku siiya allah baa ku siiya tabaaraka watacaala ka war haddaad wax yaroo kamid ilahay darti aa u bixisa waa ku barakoobaysaa ilahi wuu barakeynayaa axsin mucaamalaته في بالك يحسن معاملتك وكو بركينيا واحسن نينكي صاحب الحديقه beer waraabsanaya nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sheekay rooba buur illa ka daay buur illa marka nin meesha maraya wuxuu maqlay buurtan dusheeda daruuraha cirka mala ka dhawaaqay wuxuu leeyahay asqi xadiiqata fulan asqi xadiiqata fulan beerta hebel ku daa beerta hebel aad roobkii daay roobkii markuu buurta ku daa buur illa biyo waxay soo qaadeen meel jeexan si u socdeen ninku daba ordaa biyo xoog bay u socdaan biyo oo dhan waay markaas wuxuu yimid nin oday ah oo beer biyo baa ku dareerayo badal buu haystaa beerta waraabinaya ku leexleexinaya biyaha suya abdallah masmuk adoonki ilaahay oo magaca suya hebel baa la dhahaa maxaad magacay soo xushaga magacii uu ka maqlay samada suya maxaa ii weydiisay magacayga suya waxaan maqlay roobka da'ayay qayla ka dhaxyar soo leeyay beerta hebel aad beertaana biyo soo galeen magacaagaana maqlay maxaa beerta ku samaysaa si hadaa i weydiisay saddex baan u qaybiyaa wixii ka soo baxa qayb ayadan dib ugu celiyaa oo ku beeraa waa qarashkeedii iyo beertii iyo qaybna aniga carruurtayda cunna qaybna waan sadaqaystaa maalin weyd waxaa laga sheekeynayay nin carab ah oo dhalinyaro ah sheekh ka sheekeynayaan maqlay oo yiri asagoo shiitan shil ma haysto yaa waxaan idin u yiri ganacsigaan bilaabaya ilaahay haddaa ganacsigaa ii barakayso shirkaan kula noqonaya 10% adaa ku sadaqeynaa dartaa waxaan rabaa shirka inaan kula noqdo ninkii lacag badan buu helay markaasaa idin u yiri I make it 20% for you way badatay 10% magdam wuxuu 50-50 wiilkii millionaire buu noqday markaasaa waxaa la yidhi millions of dollars buu bixinaya markaasuu wuxuu dhihi jiray baa aniga iyo shariikayga
me and my partner. Who's your partner? Waa Allah wey. Whatever I make, half of it isagaa iskale. Isagaa iskale. Inuu saa uma fakarno waxaa dhici karta inaan dhahno sanadkii hore wax bixiyey, bishii hore waxbaa saan ahaa, weliba hadda masaajidda iyo dhibka jiray waa u socotaan. Marka haddaad hagaajiso maalkaaga wax un ka mida, qodobka ugu dambeeya ee mucaamalada alle haddaad hagaajiso, mucaamalada uu hagaajinayo waxa weeye waqtigaaga wax yar oo ka mida diintiisa geli. waqti ka mida maxaa dhacaya marka umuurtaada kaloo ilaahay kuu barakeynaya. saacad ka mida, 2 saacadood usbuucii ka mida masaajidka u samee. masaajidka imo darsi dhegeyso, xalqad qaado. haddaada xalqad xataa ay ka soconin, macallin intaad la hadasho waxaad tiraahdaa kitaabkan markii hore waxaa la arki jiray 2 nin oo kitaab isu marinaysa, hadda ma jirto. 2 nin oo kitaab isu marinaysa la arki jiray, hadda sheekha waa in arday badan soo aruuriyo, ardaydii waa kala yaacayaan. ka waran haddii qofku macalinku soo sheekh kitaabkan ay akhri, kitaabkan uu qofka hadduu xataa sheekhan xoogaa uu ka yaqaan uu ku akhriyo oo dhamaysid, mid kale u tagta kitaabkan uu dhamaysid, mid kale u tagta kitaabkan aad dhamaysid, meeqa kitaab aad dhamayn kartaa? wax badan baad dhamayn kartaa haddaad hagaajiso waqtigaaga. waqti yar oo kamid a aad la siisid, ilaah wuu kuu barakeynayaa. marka muxaadaradan dhan waxaan kelimadan waxa weeye axsin mucaamalatahu yuxsin mucaamalataka. xiriirka aad la leedahay alla hagaaji, xiriirka uu kula leeyahay wuu hagaajinayaa. marka aad fiican tahay oo caafimaadka qabto ood wax haysato oo aad faraxsan tahay, xasuuso markay dhibaatada aad ku jirto ku xasuusanaya alla tabaaraka wa tacaala. jazakum allah khayr. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.